KNN nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan KNN kalamaanay beriga waraan idiin sheega dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumiyi ka digtoonow dab hulaaqay noqotee war waxaad noo sheegayso wax meel wada gala maaha war waxaan meel wada gelin waa waxa la isku baabi'inayo warnamayaw mayla eray sidii korkalon hoga ila malan hoga kora lambowna lanjee maansadee marka ka fiirsada bahal 4.5 ka dhisanta magaalada haddaan fiiriyo waayo badan joogay musuq maasuq mooyee ma jira ruux cadaalad ah nin waliba ninkuu leeyahay dabada haystaa miya war abwaan cabdidhuux wuxuu yidhi xilli waxaynu joognaa nin xalaal ku gaabsaday xilkiisana ka soo baxay doqonnimo ku xamayo caqiraadu badan tahay warnimayaw war ma haysaan ii dhegaysta maxkamadda gobolka banaadir 7 qof oo loo haystay dilkii iyo gubistii axmed dawlo ayay 3 ka mida dil toogashaa ku xukuntay 4 ka midana waa sii deys warnimaya waxaa la yidhi ninkii axmed dawlo waranka ku dhuftay isagoo maqan ayaa dil toogashaa lagu xukumay warnimayow axmed dawlo qoyskiisii maanta waxay yimaadeen raadiyo kulmiye waxayna yidhaahdeen dadka la xukumay annaga waxba nagama dilin ee dadkii wax naga dilay waa naqaanaha naloo xukumo aryaadhaha qoyskaas wixii ka dhinta waa ka dhinteene kuwii dhibku ka bilowday gabartay wiilka iyo arooska ayaysanba nololyo geeri gacan ku haynin warnimayow arooskii qarnigu qarsashadii qarniga miyuu isku bedelay warnimayaha waxaa la yidhi garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxaa loogu magac daray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan warnimada Sayid Axmed Duxul maxaa ka qaldan ma wuxuu ilaa adeerkiis Xasan Turki oo agtiisa ku dhintay war haddii garoonka Kismaayo loogu magac daray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan soo garoonka Hargeysa loogu magac dari maayo Sayid Axmed Godane waa markaan garoonka dhuusamareeb u bixin lahayn Sayid Aadan Xaashi Cayrow wallaahi madamadaga hoosan sheantan garoonka baydhow Sayid Abu Reebo Abu Mansuur aan ka dare aniguna mugaan waxaas maqlo waa markaan dhihi jiray garoonka Jawhar Sayid koba ku tukade boowe waa markaan aan garoonka Boosaaso u bixin lahayn Sayid Faashan gole war inta aad tirisaan 4.5 bay ku saleysnaayeen muqdisho maxaad tiraahdeen aryaadaha waa iska murmaysiina muqdisho meeqaan awalba ma lahayn shibna gadhaha waxaas daranood hadeer qaybsanaysaan muqdisho inay ka qadaawro war anigu waxaan aad uga xumahay gobolladoo dhan diyaaradaha tago magaalada Ceelbuur anna taray iyo biji waxaan ahayn ma tagaan warnimayow laba gabdhood baa sheekaysanayay mid baa tii kale waxay weydiisay muqdisho maxaad ku nacday waxay tiraahday qaraxa magaalada ku jira Nairobi maxaad ku nacday Soomaali sujuud miyaa tahay Hargeysana maxaad ku nacday اعترافك حقو سو مريا بايدبر maxaad ku nacday afmay garadaase war madaxweyne farmaajo wuxuu booqday arday dugsi hoose dhexe oo imtixaan galeysay wuxuuna ku dhiirigeliyay waxbarashadooda inay sii wataan warniya war ka shal dhimanyan in dhimaatir masabar la galay war ardayda dugsiyada sare sanadkan imtixaanka dawladda galaya waxa loo sheegay in muraajacada ay ka daawadaan telefishinka dawladda waqtiguna waa 4 saaci bar habeenimo warnamiya walbasinka galdan hamiin hoo iyoonay hundurmi leeri oo nog 4 saaci bar hajeedii may suubiye waryaada ardada hadii wadooyinkii laga xirtay waqtiga muraajacada loo soo deynayo xilli ay soo jeedaan ma looga dhigo waryaalahan walaweynay madaxweynaha iyagii Musabiixi qaybo kamid ah Soomaaliland ayaa xaaladooda u galiyay war naga tag gobolka Banaadir ewelo xaalad gaar ah ku jireen war madaxweynaha hore Sheekh Shariif wuxuu la kulmay gudoonada labada gole baarlamaanka wuxuuna kala hadlay siday u wada shaqayn lahaayeen kaalehe ewel ma kala shaqaysahaayaan waaba yaabe war dalkoo dhanba looma shaqeeyo waa laga shaqaystaa war lan isan ogolinba ma aragaw nabadoono dadka heshiisiyaana ma in farfaraytagnimayow shaki kuma adeegtaa la yidhi hawl sharci ahayd waa la isku shaashaynayaa waana laba shay inaanay is-shaabihi karayn ma dadka u sheegno war lankii likabagada boodkaa la saari jari war naga aamusa waa dalka Indunuusiya meesha dadkii tirinayo codadkii doorashadu ay dalka u baaba'een aryaadaha dalinya la seexda laga reysan jiray kan xabad miya lagu la dhiftaxay
tahay war naga tag kumanaan kaloo ayagiiba hadda isbitaallada daal la yaalle tira badana war wuxuu jilicsanaa alla ilahay inaysan Soomaali ahayn war doorashada qof iyo codka haddii daal loogu dhimanayo baarlamaankeenna iyo 4.5 ma ku wadano maxaa loogu ordaya may gaale inoo 4.5 keeda kinga jara warnimayow waxaa la yidhaahday Donald Trump muddada uu xilka hayo 10,000 oo been ayuu sheegay war maalinta beenta aman dheerahayd ilaaha gudibi aryaadaha ma waadan maqlina malayga basaaska ahayo ruushka laga soo diray lagu qabtay dalka Norway malaana ma basaasa laga dhigtay war shimbirtii huduuda maqli jirnay naga daa malaygii beenta sheegayso waryaada xigmad leedin kama helayay dadka dhagaha ka jibinay ordaha naga taga war shimbiryaal heesa leeymaha warkiin waryaa neeta wax sheegsan lama yaqaan war ay shooda yaa way خير الله يديم كانه